وقرون بقعتي عيارها بربرتي لصوح لي ترتمى بباقي بشي غير بيكما نامو سركعا صعب 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 بدن هالوقتو صعب 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 بدن هالوقتو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتها بوني دي لهانتين بديجستيال كسور وهذا برنامج كيني فاقداد عيارها ديجستيال تضبات كان برنامج كوحين كويجي دونا فلقين كسابسن عيارها قبل هذا الجمهورية الصومالي لان sidaynu la wada soconaba garoonka Hargeisa stadium ee magaalada Hargeisa waxa si toos ah uga socda koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ciyaarayaan afarta group ee kala ah group A, group B, group C iyo group D. Groupka A oo ay ku wada jiraan xulalka Hawd, Buuhoodle, Maroodijeex iyo Selen. Ayaa isagana sidoo kale groupka B waxa ku wada jira markaasi xulalka Saaxil, Sanaag, Daad, Madheer iyo Xaysimo. Groupka C waxa ku wada jira Awdal, Baran iyo Selen. Halka groupka D ay ku wada jiraan gobolada Gabiley, Sool iyo Togdheer. Hadaba dhageystayaal barnaamijkeena baynu ku falanqayn doonaa cidda markaasi iska xaadirisay wareega kan xiga iyo markaasi cidda macasalaameysay tartanka koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mustafa Cabdi Dhanlaax ayaa dhinacayga markaasi bidix fadhiya oo aan ka wareysan doona cidda markaasi soo baxday iyo waliba markaasi cidda macasalaameysay koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo maraya wareegiisa labaad ee is aragga heerka gruubyada. Ku soo dhaw Mustafa. Axmed cabdi caydiid aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiib waan ku dhawahay barnaamijka. waayahay Mustafa hadaba waxaynu guda gali doonaa falaqaynteena ee imika waxaad hadii aanu ku horeyno markaasi dhinaca heerka gruubyada ee koobka gobolada hadaad si guud u falaqaysaado gruub dul istaagaya Mustafa koobka gobolada wuxuu marayaa imika wareegiisa labaad ee is aragga heerka gruubyada bal markaad u fiirsato ciyaarihii la ciyaaray iyo waliba markaasi awoodaha kooxaha adigoo eegaya bal falaqayn guud naga sii sidoo u socdo tartanka koobka gobolada iyo cidda la oran karo waxay u gudbi kartaa wareega kan xiga. Axmed oo saaxiib hadaynu eegno group A waxa ku wada jira gobolada Hawd, Buuhoodle, Maroodijeex iyo Saraar. Marka gobolka Saraar laga yimaado gobolada Hawd, Buuhoodle iyo Maroodijeex laba kamid waxa la doonayaa inay iska xaadiriyaan wareegan xiga ee 8-damaadka. Markaas gobolada imika tusaale ahaan gobolka Saraar oo kale waxa dhici karta ama way dhici kartaa inuu ka haray sidaas uu uga haray groupkan oo waayo wax dhibca ma sito labadii ciyaareed uu soo ciyaarayba ku dhawaad ba waxa laga dhaliyay 5 gool kii xulka gobolka 8 gool ba labadii kulligooda soo ciyaaray laga dhaliyay Axmed. Marka ciyaarta ugu qiimaha badan leh ee groupkan horta maanta laga qiimeynaya imika Hawd oo kale hadaynu ku horeyno Hawd oo kale ciyaar uu soo barbareeyay oo wuxuu la barbareeyay Buuhoodle ciyaarna uu badiyay marka isagu rajadiisu uu fiican tahay aad buu rajo fiican yahay groupkan waxaana dhici karta inuu waliba number 1 kaga baxo waa hadii maanta uu ka badiyo xulka gobolka Saraar. Maroodijeex hadaynu soo noqono Axmed rajada Maroodijeex midmadow ayaa soo yara galgalaya marka dhinaca kubadda cagta la eegayo walaw kubadda ay tahay oo lana badin karo lana barbareen karo una badin karo ay dhowr waji yeelan tahay marka kubadda cagta la ciyaarayo. Hadaynu eegno maanta gobolada Buuhoodle iyo Maroodijeex hadii gobolka Hawd uu badiyo Axmedow maanta uu Saraar ka badiyo isagu wuxuu ku baxayaa number 1 groupkan group A wuxuu kaga baxayaa kaalinta koowaad oo 7 dhibcood ku baxaya hadii maanta Buuhoodle iyo Maroodijeex ay barbareeyaan Axmed rajadii Maroodijeex gud bay ku dhacday oo sidaas inay groupka kaga hadho ayaa aqli gala waayo Axmedow Maroodijeex hal kulan way badisay kulankii ka dambeeyay kulankii ku xigana waa laga badiyay 3 dhibcood oo kaliya tahay 3 dhibcood oo kaliya ay seetaa halka xulka gobolka Buuhoodle kulankii ugu horeeyay oo Hawd la ciyaaray ay gool wada galeen kulankiisii dambe uu Saraar la ciyaarina uu badiyay marka Axmed isagu tiraba marka xataa goolasha laga yimaado marka xataa dhibcaha laga yimaado goolal buusita oo marka hadiiba ay barbar galaan horta markasta Buuhoodle wuxuu Maroodijeex dheeraanaya hal dhibic hadii xataa barbar galaan hadii uu kaba badiyana deetaasi waa iyadu waa isaga rajo fiican bay Buuhoodle u sii yeelaysayo kaalintii labaad ayuu si fiican u cudhiirsanaya marka Maroodijeex maanta kaliya tab guul bay ku soo baxaysaa Axmed inay badiso macal barbaraha haday barbarayso waa hadii rajada xulka Hawd ay badiso barbaraha markasta waxa ku haraysa gobolka Maroodijeex saara waxa dhici karta inuu ku macasalaameeyo wareegan xigeen aan raacin marka maanta waxaad leedahay Mustafa xulka gobolka Maroodijeex waxa ka go'an inay guul gaaraan ay tartanka wareega kan xiga ugu gudbaan طبعا Axmed waayo Mustafa waad maadsan tahay bal haatan aynu gudubna groupka B isagana groupkan B waxa ku wada jira Saaxil, Sanaag, Daad, Madheer iyo Xaysimo bal isagana hadaad dul istaagto maxaad ka oran leedahay Mustafa Axmed group B markaad imika ka timaado group A laftirkiisa waa la soo dul saaran yahay
oo xulkii gobolka sanaag ciyaartiisii ugu horreeyay waxaa ka badisay sanaag oo 2-1 ayay Axmed kaga badisay ciyaarta ku xigtay waxaa wada ciyaaray gobolada Daadmareer iyo Xiiso ciyaar aad u adag ayay ahayd runtii ay soo bandhigeen labada xul ciyaartaasina waxay ku soo dhamaatay laftirkeedu 2-1 oo xulka gobolka Daadmareer dhashay oo soo ciyaarta hayeen ka markaasi ganax ku dhacay ganax badan ciyaartaasi muddo badan soo galay markaasi wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay ka soo saartay inaanu markaasi inta sanadkan ka hadhay iyo tartankan intuu socdo baanu markaasi garsoore noqon doonin dabcan Axmed bilaa go'aannimo ayaa lagu waliba inta ugu badan lagu eedeynayay inaanu go'aan ka isagu yaani maamulka ciyaarta oo isagu lahaa go'aankeeda inuu ka gaaro balse aanu go'aankii ciyaarta isagu Axmed aanu wada gudan baa lagu ganaaxayay sida ugu badan markaas xulalka saaxil iyo sanaag ciyaartoodii ugu horeeyay markii ay wada ciyaareen Axmed sanaag baa badisay oo isku 3 dhibcood ba markii ugu horeysay groupka kala baxday iyadu ciyaarta ku xigtana Xiiso Daadmareer baa isaguna 3 dhibcood saafiya Xiiso ka qaatay marka sanaag iyo Daadmareer oo rajo fiican lahaa oo iyagu labadooda ciyaarada ugu horeeyay badi Axmed oo 3 dhibcood sita rajada ciyaartu isbedeshay saaxil oo markii hore sanaag ka soo badisay Daadmareer bay tirima dhaafsido 2-2 ay wada galeen oo dhibcaha Axmed halka ku qaybsadeen hal dhibcood ayay kala qaateen marka saaxil iyo dhibcaha horeeysidan kulankeedii ugu horeeyay Daadmareer ayay la barbaraysay kulankeeda ay dhahdeen labaad kulankii hore markii laga soo badiyay kii labaad way barbarayso gool 2-2 ayay gashay hal dhibic ayay halka Axmed ka haysataa hal dhibic ba haystaan ha Xiiso sanaag Axmed ayay la ciyaartay goolka Daadmareer isagu 4 dhibcood haysto dabcan isagu 4 dhibcood yeelanaya oo markasta isagu rajadiisu waa groupka ugu rajada fiican la imka markaad eegto groupkan wala wax kasta ay dhici karaan maanta hadii sanaag ay badiso berito lay wada ciyaarayaan hadii ay sanaag Daadmareer ka badiso Axmed ay Xiiso ka soo badiso saaxil Daadmareer meesha uu ka baxay oo waxa soo baxaya sanaag rajadu hadii ay isku bedesho xulka gobolka Daadmareer markaas Axmed groupkaas wallahi saadaashiisu lama saadan karo طبعا hadii marka ay soo badiso kale saaxil oo kale ay ka badiso Xiiso ay saas ku rogto saaxil waxa tagaysa 4 dhibcood Daadmareer noo ka badiyo sanaag saaxil waa rajo fiican bay yeelanaysaa Axmed oo marka qaar saaxil way soo bixi kartaa oo saaxil hal dhibic imika leh iyadoo Xiiso 3 dhibcood ayay leedahay sanaag oo kale 3 dhibcood ayay leedahay Daadmareer baa groupkan Axmed ugu rajo fiican isugu 4 dhibcood leh laakiin groupkan cid kasta inay soo baxdo waa la filan karaa imika hadii sanaag yax ay wada ciyaarayaan markay Daadmareer wada ciyaarayaan hadii Axmed Daadmareer uu ka badiyo sanaag iyo 3 dhibcood halkii iduu may dhaafi karto way ka dhamaatay laakiin hadii ay saaxil iyo Xiiso Axmed inta wada ciyaaraan ay saaxil soo badiso ay ka soo badisay Xiiso groupka waxa ka wada bixi kara Axmed oo wareega 8 dhamaadka oo bixi kara u gudbi kara saaxil iyo Daadmareer Axmed rajadu saa way noqon kartaa laakiin rajada sida ugu dhow ee loo qiimeeyo waxa weeye Axmed Xiiso kubada fiican oo qurqurux badan bay soo bandhigaysay marka groupka bal natiijadiisa bal weyn eegi doona ha saadaal male dabcan way wad maasantahay Mustafa haatana aynu u gudubnaa labada group ee ay ku kala jiraan 3 markaasi xul gobol waa groupka C iyo groupka D aynu ka hormarnay Mustafa dhinaca groupka C iyo adigoo waliba si raacinayo groupka B labada group ee 3 xul ay ku jiraan maxaad ku dhaleed Axmedow groupada hore 4 gobol bay haayeen laakiin groupbadani way ka si aad bay uga si fudud yihiin oo naadigu hadduu hal kulan badiyo hal kulan barbareeyo u bixi kara oo wareegga sideedamaadka uu gudbi karayo isagu 3 kooxood ma arki karo laakiin imika kooxdani imika tusaalahan Axmed Awdal 3 dhibcood bay heshay markii ugu horeysay waxa ay ka badisay xulka badan oo 3 gool iyo waxba ay ka badisay marka iyadoo markii horeba iyadoo Awdal halka joogtay way iska sii baxday iyadoo markii horeba oo 3 dhibcood saafi ay haysatay groupkan markii ugu horeysay Axmed waxa wada ciyaaray gobolada Awdal iyo badan oo Awdal 3 dhibcood ayay badan kaga badisay ciyaarta ku xigtay oo la isba lahayn badan way soo kici kartaa ayaa waxay badan hadana is hayeen oo groupka ku wada jiraan gobolka Salad Axmed ciyaartaas sidii laga filanayay ma noqon oo badan baaba weerar badan la soo gashay oo kubad in badan ay yaani tababaraha iyo ciyaartooyda ay ka cabanayeen ay lahaayeen ciyaartii hore aan la ciyaarinay xulka gobolka Awdal garoonkan aan la qabsano garoonka Hargeisa stadium baan ugu ballaadhay maalintii ugu horeysay waynu noqday iyo tarabuunka iyo dad badan ka soo qayb galeen beerada marka ayagu cabasho halkaas ay qabeeyeen laakiin kubad xumaan ma naan qabiin beerada naga raali hadaan reer badanahay Axmed ciyaarta ku xigtay la ciyaareen Salal ay waji kale la yimaadeen marka garoonka Hargeisa stadium ciyaartoodii labaad u ahayd oo haday badiyaan ay baxayeen tiraba ciyaarta 4 gool iyo 2 ay ku soo dhamaatay ayaa ku badiyeen xulkii gobolka Badhano iyadoo waxa ay tirday ciyaarayeen harsanee wareegga sideedamaadka ayaa sidaa ku tagay waayo cid kale la ciyaartaa ma jirto 3 dhibcoodna way haysataa iyo 2 gool oo saafiya marka Axmed hadii aynu eegno groupka D waxa ka baxay Axmedow in groupka C hadaan ku noqonay groupka C waxa si toos ah uga wada baxay imika gobolada Awdal iyo Badhan ayaa wareegga sideedamaadka u gudbay gobolkii Salalna isagoo halkaas ayuu ku macasalaamay koobkan gobolada Soomaaliland groupka D aynu gudubnaa aan idhaahdo Mustafa
groupkan waa group isaga laftarkiisu uu xasaasi ahaa oo laba gobol oo markaasi waaweyn ay ku markaasi jireen walow isaguna gobol fadala cadcad la soo baxay oo aan la filayn awoodan inuu yeelan doono oo meesha ka soo dhex baxay uu yahay gobolka Sool groupkan markaa Mustafa waxa ku wada jira xulalka gobolada Gabiley iyo markaasi Togdheer oo ah markaasi laba gobol oo markaasi iyagu saameyn dhinaca kubadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagu markaasi heer fiican ka ciyaara bal marka haddii aad groupkaasi istul taagto isagana maxaad ka oran lahayd Mustafa Axmedow groupkan D waa group in badan muran badan dhaliyay oo gobolkii Sool oo ciyaartii ugu horeeyay Gabiley eber la galo oo yiri waxba la iga dhalin maayo ciyaartii ku xigtana la ciyaaray gobolka Togdheer oo haddana yiri ka waxba la iga dhalin maayo ayaa waxa uu kala baxay labadii kulan ee uu ciyaarayba waxaan la yaqaan clean sheet-ka ama inaan shabagiisa la soo taaban xulka gobolka Sool labadii kulan ee uu ciyaaray Axmed wax gool laga ma dhalin laakiin isagu labadii kulan ee uu ciyaaray hal gool ayuu ka dhaliyay xulka gobolka Togdheer waliba waxa igu markaasi aan social media iyo warbaahinta si toos ah u dhex socota oo bariyahan ba ku badatay in goolada adag waliba xulka gobolka Sool uu goolka ugu jira Mustafa oo nin magaciisa la yiraahdo Yusuf Lambasa Axmed labadii kulan ee uu ciyaartay Yusuf Lambasa waxa uu qaatay xidigii garoonka labadii kulan ee gobolka Sool uu ku ciyaaray garoonka Hargeisa Stadium midna la kulmay uu ka horyimi gobolka Gabiley midna uu ka horyimi gobolka maxay markaasi Togdheer Axmed runtii gobolada ciyaaraha caalamka marka la eegayo ama Premier League ayuun baa la oran jiray David De Gea qaatay man of the match ama xidigii garoonka iyo Manuel Neuer baa xidigii dabcan oo ciyaarta qiimeyntiida 5 gool uu badbaadiyo tiraba xulka Gabiley Axmedow hadaan imika tusaalahan tira aan soo qaato inta anigu indhahayga ku arkay tiraba 6 gool ama 7 gool aan qiimeyn kari lahaa anigu hadii oo gool aan u filan karay aniga laftarkayga Mustafa ahaan ayuu Axmed Yusuf Lambasa badbaadiyay marka taa waxa la oran karaa Axmed xaq buu lahaa inuu man of the match ciyaarta kulanka Gabiley oo qaato tii gobolka Togdheerna Axmed isaga gobolka Sool soo saaray Axmed oo counter attack badan ama kubadaha ka daba tuurka loo yaqaano ka gaarsiiska inta difaac la gal lagu jiro laba nin oo weerar la yaacayaan kubada inta dhexdii laba nin oo dhexdii kubad dheer tuuraan baalihii la yaacayaan goolka ay u gaarayaan xulka gobolka Togdheer maalintii Sool la ciyaaray Axmed kubadaha noocaas uu ciyaaray kubadaha noocaasna waa kubadaha ugu halista badan marka kubad cag la ciyaaray Axmed oo waayo la wada guurayaayo attack weerar baa la wada galaya kadib hadii laga daba tuurana si aad ku soo gaadho gool haye ayuu ku badbaadin kara iyo dabcan nasiibka marka Axmed Togdheerna markan qiimeeyay Yusuf Made la ciyaaray xaqiiqatan goolashii ugu badnaayay Togdheer hadii gool dhalin lahayd Yusuf Lambasa ayaa ima dhaafto markaasi bas ka hor baqtistay ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee shalay garoonka Hargeisa Stadium ka socotay ayaa waxay dhex marisay gobolada markaasi Gabiley iyo xulka gobolka Togdheer iyagu dhinaca social media uu ka dhaxeeyay markaasi xafiltan aad u weyn oo hawada la isku soo marinayay oo dhinaca social media la isku soo marinayay ciyaartaas waxa xamaasadeedu aad ay u sareysay oo labada gobol isku soo xamaan qaateen oo taarabunadooda soo diyaarsaday baa shalay ka dhacday garoonka Hargeisa Stadium bal ciyaarta hadda dul istaagto Mustafa iyadana falaqeero bal naga sii Axmed cabdi caydiidow ciyaaraha markaynu daawanayno ciyaaraha Yurub laga ciyaarayo ciyaaraha ugu adag waxa la yiraahdaa waa classic-ada oo dunida inta badan laga wada daawado oo ciyaartida adduunka ugu qaalisan baa ay ka ciyaaraan dabcan oo Barcelona aan caadi hayna lagu soo iibsado dabcan waa Barcelona iyo Real Madrid waa Spanish bay kooda dhisiin haddana waa laba gobol waa caasimadii koowaad iyo caasimadii labaad markaas inkastoo in Gabiley caasimadii labaad Axmed ahayn haddana ciyaartaasi deegaanka waxay nooga dhignay classico dadka inta badan social media ku xiran maalintii wala sii wada hanjabayo annaka guuleysanayay Axmed ciyaarta waan daawanayay toos ayaan daawanayay xaqiiqdii Axmed ma gobolka Gabiley laga yimaado labadii kulan ee uu ku ciyaaray xulka gobolka Togdheer garoonka Hargeisa Stadium Axmed kubad qurux badan oo aanad moodayn gobolada kale inay soo bandhigayaan ayuu Axmed xulka gobolka Togdheer la yimi garoonka Hargeisa Stadium balse umay suurto galin inuu gool meesha ka dhaliyo ama uu wareegan xiga oo u gudbo iyadoo Axmed sidaas la filayo kulankii hore uu la ciyaariyay xulka gobolka Sool uu Togdheer la ciyaaray ciyaarta sidii laga filanayay ismay bedelino waxa la islahaa rajada gobolka Togdheer waxay ku xidhantay badi kaliya ta guul inay guuleystaan oo waayo wax dhibic Axmed muusan Gabiley laakiin hal dhibic seetay hadii ay barbar noqon lahayd xataa Togdheer iska harila Axmed ciyaartii la islahaa xulkii gobolka Togdheer weerar badan la yimaado inkastoo Axmed aad moodaysay positionka xagga kubad haysashada waxaad leedahay Mustafa wax rajo ay kulankan ka qabeen xulka gobolka Togdheer aan guulahayn muu jirin Axmed dabcan laakiin Axmed kubadda cagta sunnaheeda guul iyo guul dar waa kubadda barcad iyo barmadow laba ninka moodo qosliso ama waa barbardhac ma timaada ama laga badin ama dabcan saddexdan natiijo bay u dhacay xaqiiqdii xulka gobolka Togdheer aad ayay u dadaaleen laakiin niman laftarkoodu social media la sii socday oo laftarkooda kulan adag u soo diyaar garoobo gobolkii Gabiley ka socday oo dhexdooda iyo difaacooda waliba uu aad u xoog yahay Axmed inta badan waxay ku ciyaarayaan kubad difaac shalay xulka gobolka Gabiley laakiin dhexda iyo weerarka waxa inta badan
kubadda haysashadeeda isku dhiibdhiibka ama bosishka waxaan afka qalaad lagu yiraahdo xulka gobolka togdheer baa 100% ku fiicnaa Axmed balse bila dhamaystirkii ayaan meeshii jirin dabcan ha ayaan jirin Axmedow marka waxay sidaa ahaataba nimankii gabiile ka yimid waxay yiraahdeen anagu togdheer anaguba guulina gaadhnaamaan doonaynaa haafkii horeba 2 gool iyo eber ayaa Axmed ku dhacay walaw daqiiqadii 7aad gool ay keensadeen xulka gobolka togdheer balse haddii xataa gool labaad keensadaan aanay waxba u tarahayn inay 2 gool oo degdeg ah aysan keensadaan mooyaane balse inta badan xulka gabiile iyo difaacasho badan iyo dhex adag ku ciyaarayay ayaa suurtagal waayay inay gool badan dabcan marka groupka Axmed togdheer saas ay kaga hadhay xulka gobolka gabiile iyo xulka gobolka Sool ayaa wareeg kasta damaadka Axmed saas ka hadhay togdheerna saas ay ku macaasanaamisay labada group ee kale ka horeeya ee groupka A iyo groupka B na natiijada ka soo baxda ciyaaraha dambe ayaynu markaasi ku xaqiijin doonaa Mustafa Cabdi Xasan aad iyo aad ayaad mahadsan tahay ka qayb qaadashada adiga la qayb qaadatay falanqaynta dhinaca ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waan kugu hambalyeynaya aad iyo aad ayaad mahadsan tahay saaxiib Axmed Cabdi caydiid waa hagaag dhageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeennii faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan aad kala socoteen idaacadda radio Hargeisa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka waxaynu toddobaadkan ku falanqaynay tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka socda garoonka Hargeisa Stadium ee magaalada Hargeisa dhammaantiin iyo dhammaantiin barnaamijkankiisa ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragii duman bilaabo sarakaca sacab badan ha noqoto sacab